Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan sharxi doonaa xigmaddii 14aad. Fadlan si fiican u dhegeyso. Mahadsanid. Had iyo jeer waan ku jeclaan doonaa wax kasta oo dhaca. Waxyaabaha ugu fiican waxay u yimaadaan kuwa aan marnaba quusan. Subax kasta had iyo jeer dooro inaad hore u socoto. Marnaba qalbigaaga yeesan ku soo dhicin niyad jab. Waxaan had iyo jeer jeclahay inaan fiiriyo dhinacyada wanaagsan. Waxaan had iyo jeer jeclahay inaan fiiriyo wax walbo wanaagsan. Ha is dhiibin sababtoo ah arrimuhu waa adag yihiin ogow. Haddii aad leedahay riyo, weligaa ha ka quusan wax kasta ha ahaatee. Dagaalka aad hadda waddo ayaa kuu diyaarinaya guusha ugu weyn noloshaada. Marnaba ha ka quusan dadaalka aad waddo adiga. Ilaali iimaanka. Waxyaabaha ugu yaabka badan ee nolosha ayaa u muuqda inay dhacaan isla waqti aad ka rajo dhigto nolosha. Marka waqtiyada xun iyo waqtiyada adag si lama filaan ah halkan u yimaadaan, u fiirso kuwa haray iyo kuwa baaba'ay. Sida isbeddelada xilliyada, dadku sidoo kale waxay yeelan karaan isbeddel xagga wadnaha ah. Ha u oggolaan shalay inay ku ilowdo dhammaan farxaddaada maanta. Xaddiga farxadda ee aad haysato waxay ku xiran tahay xaddiga xorriyaddaada ee aad ku haysato qalbigaaga wanaagga ka buuxa. Sirta farxadda dhabta ah waa horumar. Ogow qiimahaaga markaad ku filan tahay oo ka sii gudub dadka sii burburinaya farxaddaada oo dhan. Farxaddu ma aha maqnaanshaha dhibaatooyinkeena ee waa awoodda wax loogu qaban karo qalbiga. Marnaba ha u oggolaanin duruufaha aadan xakamayn karin inay xakameeyaan dhammaan farxaddaada dhan. Waxaan ilownaa had iyo jeer inay farxaddu aysan ku imaanin helid wax aan haysan, laakiin aqoonsiga iyo qadarinta waxaan haysano ayay ka mid yihiin. Waxaan ilownaa had iyo jeer in farxaddu aysan ku imaanaynin helidda wax aan haysan, laakiin aqoonsiga iyo qadarinta waxaan haysano ayay ka mid yihiin ogow adiga ayaa ka mas-uul ah dhammaan farxaddaadoo dhan. Haddii aad ka filayso dadka kale inay kaa farxiyaan, fursadaha ayaa ah inaad had iyo jeer ku dambayn doonto niyad jab. Waayo waxay kuu sheegayaan wax aan wanaagsanayn. Adigna waxay kaa dhigayaan wixii aan wanaagsanayn ayaad u malaynaysaa inay wanaagsan yihiin. Habka ugu fiican ee dadka loo jirdilo waa farxaddaada. Ma jiraan wax dadku neceb yihiin oo aan ahayn inay arkaan inaad adiga guulaysato. Noloshu waxay ku saabsan tahay ku kalsoonaanta noloshaada. Dareenkaaga qaadashada fursadaha luminta iyo helitaanka farxad. Sii noloshaada farxad iyo xamaasad ee ma aha ilmo iyo xanuun. Qaar waxay raadsadaan farxad, qaarna waxay abuuraan xumaan. Allahayow naga dhig intii farxad raadinayso. Aamiin. Baro sii deynta waa sida farxadda noloshaada.
hel farxaddaada keliya ma aha waqtiyada waaweyn ee nolosha. Jooji walwalka iyo walbahaarka. Mar waliba oo aad walwal isku aragto, noqo qof Allah subxaanahu wa tacaala waddadiisa ku taagan. Farxadda dhabta ah waxay ku timaadaa naftaada. Waxay u gudubtaa qofka ku jecel. Ogow, rajadu waxay aragtaa wax aan la arki karin. Waxay dareentaa wax aan la taaban karin. Waxay gaartaa wax aan macquul ahayn. Ogow, waxbarashadu waxay keentaa nolol aqooneed. Ma jiro qof leh amar luqadeed oo qofka ugu fiican yahay afkiisa xira. Waxa muhiimka ah waa tan inaan awoodno daqiiqad kasta inaan hurno waxaan nahay, wixii aan noqon karno. Dhammaan ragga guulaha waaweyn gaaray waxay ahaayeen riyooyin waaweyn. Wax kasta oo aan maqalno waa fikrad, ma aha xaqiiqo. Wax kasta oo aan aragno waa aragti, ma aha runta. Xusuusnow, mararka qaarkood inaadan helin waxaad rabto waa nasiib. Wax weyn oo aan weligood la helin lama helin xamaasad. Ogow midaas. Haddii aad aqoon leedahay, dadka kale u oggolow inay ku shidaan shumacyadooda. Xusuusta waa hooyada xigmadda oo dhan. Sirta farxaddu waa in aad marnaba qofna waxba ka sugin. Markaas weligaa ma niyad jabi doontid. Sida ugu badan ee aan ku aragno dadka kale ayaan anagu u haysanaa. Ogow, si aad u dhiirranaato waa inaad lumiso kuwa cagta marinaya. Inaad ku dhiirranaato inaad naftaada lumiso. Waa inaad soo dhowaysaa isbeddelada sida xeerka, laakiin ma aha inaad taliyo u ahaato. Dhibaatooyinkaaga nolosha waxaa loogu talagalay inayna wanaajiyaan, ma aha qaraar. Ninka aqliga leh wuxuu samayn doonaa fursado ka badan inta uu helo. Waxaa laga yaabaa in lagu qiyaameeyo haddii aad wax badan aad aaminto, laakiin waxaad ku noolaan doontaa cadaab haddii aadan kalsooni kugu filan haysan. Anagu waxaynu samaynaa nasiibkeena. Waxaan ugu yeernaa qadar. Waa weyn tahay farshaxanka bilowga, laakiin waxaa ka weyn farshaxanka dhammaadka. Ma jirto waddo loo maro farxadda. Farxaddu waa waddadaadu keliya. Dadku waxay ku koraan waayo aragnimo haddii aysan daacadnimo iyo geesinimo leh ula kulmaan nolosha. Sidan ayaa dabeecaddaada loo dhisaa. Wax waliba way samayn karaan sababtoo ah waxay u malaynayaan inay awoodaan inay wax waliba sameeyaan. Dadka kartida dhexdhexaadka ah mararka qaarkood waxay gaaraan guulo la taaban karo sababtoo ah ma yaqaanaan goorta ay shaqadu dhammaanayso. Ragga badankoodu way guulaystaan waayo waxay ka go'an tahay in ay gaaraan guul walba. Rabitaanka ugu qoto dheer ee dabeecadda aadanaha ayaa ah baahida loo qabo in la qadariyo. Weligaa ha ka qoomamaynin. Haddii fiican tahay waa yaab, haddii xun tahayna waa waayo aragnimo. Ogow, farxadda dhabta ah adiga ayay kugu jirtaa. Waqti la qaado saaxiibada waxay ku noqon kartaa farxad. Haddii aad hesho kalsooni iyo farxad, waxaa laga yaabaa inay hinaasaan. Si kastaba ha ahaatee, ku farax. Keliya sameey waxaad jeceshahay si aad ugu
qoomameynin haddii aadan wax ku raacsanayn oo aad samayn karto adiga. Markaad jacayl iyo farxad wada qaadataan noloshaada, waxaad noqon doontaa qofka ugu fiican. Ma jiraan wax ka qurux badan adduunka marka loo eego qofka daryeela noloshaada. Dhammaan ereyadii abid loogu hadlay jacaylku waa dhibacyo ku dhaca badda dareenkeeda. Mar waliba noqo qof aad iyo aad u wanaagsan. Mar waliba noqo qof Allah subxaanahu wa tacaala wadadiisa toosan ku dhaqaaqaya. Wabillahi tawfiiq. Khayr baa idin rajeynayaa asxaabteyda ku xiran YouTube-kayga.